horta abshirta Allah na waafajiyo waxa wanaagsan warbalse wax u qabsanaa hadalkii fiicnaa iyo wixii la dhihi lahaa walaalahayba hore u yiri laakiin wax yar aan ku darsan lahaay xoogaa deegaankan aan deganahay oo X-Ximan iyo xeeb ma laga aqoonin wax uqdad la yiraahdo ma laga aqoonin dad la dilo ma laga aqoonin dad isdakaneeya ma laga aqoonin biibitooyin la isku xabadeeyo hadeerna waxaan aragnay habeenkii ciyaalkii seexan waayeen awal anagoo adkeysanaynay wax qabad la'aan wasaarad la'aan shaqo la'aan oo hataa kuwii jagooyinka iyo agaasimayaasha la siiyay ayagoo dhar jeexan wata ee magaalada dhex wareegayaan ayaa haddana waxaa ku sii darsamay in amnigii yarkaanu haysanaa weyno waxyaalaha dadkaanu ku faani jiray waxaa ka mid ah in dadka deriska oo kale la qadariyo waxa soo socota marka hadeer in la yiraahdo qofkan waa reebel hal dilo awala xagga al-sunna wal jamaa soo xirtay xagga waxa laga sheegay maxalliga galgaduud sare halkan waa aragtay shabaab jooga dadkii shacabka halkan deganaa new police inta soo waday halkan keenay lamana oran war new police kan iyo waxaan iyo dawladda kala halaarto ayuu qaxootiyo baabay hadda saaradoodii kor fadhiyaan qof ka hadlay lama arko waxaan ugu sidarsatay in magaalada haddana xabad noo soo gasho waxaan leeyahay marka amni yar awlaanan xoolo haysan shaqo haysan kambaniye haysan nabadgelyada yartahay oo haysanay hana lala dhuujiyo oo saraakiisha haday runta ay shaqeeyaan oo ciidanku ha xadanaadaan oo amnigu ha noo wanaagsanaado dad hadda Arsenal la yiraahdo iska wardiin jireen hada xataa qaab iska wardiina ma naqaan hadar nasqad kale waxa la galay hadii مثلا توتها أو كله هذا قبيل كلا تاي أو توتها هو إذا سنايو لكن أنت اللي سوب بدلي إن الجوم لا يقف هالكان دجنا أو كله هذا وتدي مرك قف كمية ما أرسلنا لا مضاد كلامك لا تقاني مرك علينا نبي الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka yaabanahay dawladii aan hambalyo siin lahayn in aan caaway ka xumaanta aan ku xunaa aan sheegayno madaxweynaha ku salaamayna waxaan nahay dadkaagi oon ku nabcayn oon xumaan kale ku hayn laakiin wax qabad la'aan ka sheegay waan ku hambalyeynaa madaxweynaha ku salaamayna waxaan nahay maamooyinkaagi waxaan nahay eedooyinkaagi laakiin waxaan diidanahay dawladda aad ku sii dabac qafiif وعي مركا إن كاوي نوح لي را وحقبض أنا وهدان هاي دتك هراء أو أرد الشيء حبني يحب أنا جالس كنت شنتجني وحبان قبسن جرني لول كان حاجة جرني وحكست أنا جالس كل رجل جرني هذا أنا وحن تاجنا الدولة ذا جوكته عوض واقلي سما جود بكره هذا الشيء أنا يقل ملا تذكر ناجرة قال كأي واحد شرا ملا تذكر لو سمرة واحد شرا ملا تذكر عددنا وكسر دوده marka lagama yaabo inaan ka yeelno waxaan ka yeelayna oo kugu rabna oo wiilkeena ku tahay oo na kugu nacay dawladda inaad baa qafiifta ka dajiso horta ka fur baa qafiifta daji degaanu yeel ciidamada magaalada intay dhex yimaadaan xabadaha ka ridaayeen oo shacabkii seexan waayay oo ilmihii hurdi waayeen oo magaalada ku dhex qayilayaan oo nabadgelyada ay xumaatay bedel dekada noodis ciidamada toosi dawlad naga dhig waa ka yeelayna wiilkaaniyaatay soo dhawo hadii aadan hayn oodan meel ku ogeyn waa ku duceynayna maandho waa ku duceynayna nagada mid kale aan u dhiibanayna galmudug baa la yiraahdaa hana kala dirin waan sunnimid si aan la filayn baan sugu nimid si aan la filayn baan soo helnay hana kala tuurin waa ku duceynayna وأنا سلامة يا دولة قلمدك يو مدح ذا يكفينا ذا يحلبان ذا إمام الكذا بسم الله الرحمن الرحيم مدر يعني مروي والسلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هل كان واحد سكون مدي وحقبل الآن قلمدك
iyo maxay tahay inaan ku faahfaahino waxa jira oo dhabtaa oo meesha ka jira oo in badan aan la aamusnayn. waxaan u malaynayaa inay hadda maaragtay dowladdeena iyo maamulkeena aan samaysanay ay jirto sanad iyo wax ka sii badan ilaa haddana wax la taaban karo oo waxqabada aanan ku haynin annagoo aysan naga ahayn dhaleecayn iyo maaragtay isha siyaasado kale inuu maaragtay kulankeenan uu ku lug leeyahay. waxaan sheegaynaa waxa dhabtaa oo jira oo loo baahan yahay wax laga qabto. waxaa ka mid ah ballanqaadkii uu noo ballan qaaday cabdikariin xuseen guuleed intaasoo bilood dhexdood baan waxaan ku qabanayaa hase ahaatee wax uu ku qabtay aysan jirinin. tii annagoo ku aamusan baa haddana xabado aan in badan maaragtay ku diimi jirnay iyo dhibaato iyo meyd iyo dhaawac iyo waxaanan aqoon aan la kulannay. waxaasoo dhanna waxay saamaynayaan waa marasta ilmaha danyarta masaakiinta dhooban magaalada. waa fiirsan weynay guryaheeni waa uga jiri weynay waa u dulqaadan weynay dantaana lagu qasabtay inaan bannaanka dhigno ka hadalno. waxa weeye marka waxaan u sheegayaa dadka galmudug u dhashay dad iyo dibad inay ogaadaan cabdikariin waxa uu qabtay. hadduusan wax qaban soo maaha mid wax qabanaya ninkuu doona ha ahaado ha lagu bedelo. waa shaksi aan dooranay dadkii ka mas-uula dhibaataa dhacday colaado aanan shaqo ku lahaynaan dhacay colaad iyo cadow midna ma aanan lahayn hortiisa. haddeerna meel walba waa xabad iyo dhibaato. marka arrintii uu shalay ballan qaadana wuu ka soo bixi waayey. maantana dad dhibanayaala aan nahay dhibkeenna inaan bannaanka keennana waa ku qasbannahay. waxaan ku darayaa dakaaliyadaha u dhashay galmudug ayagaa laga rabaa inay dhistaan inay wax qabsadaan inay dhexna marada ku xirtaan cidnaysa waxba ka sugin. gaalna wax noo qaban maayo cabdikariinna waxba noo qaban maayo. warka cadna warka marada lala hudo wuu ka weyn yahay runtana ha laysku sheego. waxaan dareemi karnaa galmudug waxaa ka dhimay 18 cisho sanad guuradii koowaad ee galmudug. waxaan dhihi karnaa waa sanad waxqabadkii la filayey iyo meeshii laga filayay aysan jirin. waxaa la filayay howlo badan oo muhiim u ahayd dowladda madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed oo ay ka mid tahay heshiiskii ahlu sunno oo wax laga qaban dekadii hobyo la filayay in la furo maaragtay maamulkii la adkeeyo oo waxba laga qaban. barnaamijyadii kale oo horumarineed waxaan aragnaa maamulada kale maamulkii u dambeeyey jubbaland iyo koonfur galbeed oo maamulada u dambeeyey bishii lacagta ay helaan waa $1 million oo ay ku deeqaan maxaa la yidhahdaa sanduuqa Somali Stability Fund looga deeqo. waxaan aragnaa ayagoo imaaraadku wax ugu deeqayaan galmudug intaasba kuma hayno. waxaad moodaa marka January markii la furayay 2016 kal fadhiga baarlamaanka qaybtiisa labaad madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ka sheegay waxay ahayd in April la fasixi doono dhaqaalaha galmudug 12 milyan oo sanadkii loogu deeqay. ma aysan dhicin. maanta waxaan maraynaa June oo gabagaba ah. ma jiro qof wasiir amaba agaasime wasaaradeed oo shaqo aada. waa jiraan dad magacaaban xildhibaanada. anigu horaan wax ugu qoro faale waxaan qoray hore la yiraahdo galmudug fadlan kor u hay. macnaha galmudug fadlan kor loo hayaa. madaxweynaha waxaan ognahay hadda madaxtooyada Soomaaliya guri uu kireysan yahay degan yahay. waxaa laga yaabaa waqtiga sanadkaas waa 360 cisho 360 kaas cisho. waxaan dareemi karnaa waxyaalo badan oo siyaasiyiin waa jiraan dad siyaasiyiin oo ama maamulka mucaarado ayaga laftigooda wax qabad lahayn waa jiraan. laakiin annagu waxaan sheegaynaa waxay tahay dadka deegaanka joogaan nahay. waxaan ka hadlaynaa galmudug maalintii la dhisay waxaan filaynaa waxay ahayd dowlad goboleed la jaan qaada maamulada kale. weliba waxaan ognahay fursadda ay madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed uu haysto waxay tahay waa madaxweynaha keliya oo baawur aan bullet proof ahayn ama ciidamo aan amiso ahayn aan u baahnayn oo maanta 300 kilomitir tagi kara asagoo baawur hal baawur oo waardiya iyo hal baawur oo asagu saaran yahay u qaadan karo. waa madaxweyne mari kara.
intaasoo fursadood ayadoo ay jirto waxaad moodaa in doorashadii 2016 ay namaan qaaday mashquul badan ay madaxdii ku riday hawshaasna ay noqotay maaragtay hawsha ugu badan oo ay maaragtay madaxdeena wax ka qabtaan waxaan dareemi karnaa waqtiyada lagu bixinayo doorashada waxaa ka muhiimsaneed in wax lagu bixiyo dadka deegaanka in la dhiso oo madaxweynuhu sanadkiisa koowaad uu ku qaato sanadkii dawladdan waxaa lagu magacaabay dib u heshiisiin waxaan ognahay wasiiradu seminaaray ka qayb galaan moogiye iyo hoteelada inay fadhiyaan inaysan shaqo kala jirin wasiir ma jiro anigu waxaan filaynay dawladda oo degta dawladda oo maxaa la yidhahdaa xafiisyadii la furo qasab maaha inay dawladdu guryo dhisato laakiin dawladdu waxaan filaynay inay guryo ku shaqeeyaan ugu yaraan waxay ku shaqey karaan ha xarun oo kafaalo la yidhahdo ku shaqey karaan wasaaradaha dhan waxaan filaynay waxay ahayd wasaarado shaqeeya hadda waxaan aragnay agaasimayaal iyo dad magacaaban mushaarna ma qaataan mana shaqeeyaan dadki marka waxaad moodaa in aada looga niyad jabaya dawladdii sanad jirtay waa dareemi karnaa howlo badan iyo caqabado badan a iska jiri kara waxyaalaha markaan leenahay galmudug waa fadlan kor u ahay galmudug ciidamadii waxaan aragnaa inta mushaarka qaadato waxaa ka badan inta aan mushaar u qornayn inta mushaarka qaadata laftigooda waa ciidamo mushaarkoodu iska soo daaho xataa galmudug ma ay qabato marka la weydiiyo dawladdu maxay leedahay ma waxay leedahay waxay ku antacoonaysaa meeshan waxaa la rabaa dhaqaale in lasoo saaro waxaa la rabaa dhaqaalahaas kaabayaal dhaqaalee leedahay oo muhiima kaabayaasha dhaqaale waxaa ugu muhiimsanaa dekeda hobyo waxaa ugu muhiimsanaa waddooyinkoo la maalgeliyo waa hubaa dad badan ayaa diyaar u lahaa inay maalgeliyaan laakiin dee haddaanan laisku mashquulin waxaad moodaa in meeshaas dhibaato badan ka taagan tahay dad badan aan hadalka u hambaynaya oo iga dambeeya ani waxaan oran lahaa marka dawladdu fadhigaa ka kacdo dhaleecaynta aan dhaleecaynayna ma aha mid aan jago uga raadinayno ama mucaarad gaar aan ku nahay keliya waxay tahay inaan dawladda leenahay dawladdu ha toosido waxyaalaha annagu waxaan ka filayna waxay ahayd oo galmudug u dhisanay inay galmudug noqoto dawlad noo adeegta aada u mahadsantahy waxaan halkan uga hambalyeynayaa dadka ka soo qayb galay iyo dadka soo abaabulay iyo dadka u dhashay xibil iyo xeeb iyo galmudugba waxaan halkan uga sheegayaa dadka dhalinyarada iyo ururada cadaado iyo gobollada dhexe iyo meel kasta u dhashay inaan cadaado mari weynen lala mari weyne qashin iyo qurun oon jirar ka qaadnay oon ilmihii cudurro qaadeen oo dadkii cudurada la arki jira qaadeen magaalada la yidhahdo